daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkeenii qiimaha badnaa ee aad kala socoteen saxafi channel. caawana waxaan ku qaadaa dhigi doonaa taariikh nololeedkii laadarkii ama jilaagii ugu caansanaa Bollywoodka soo mara ee Amrish Puri ee ka bogasho wacan. Amrish Puri wuxuu uu ka mid yahay shakhsiyaadka loo nisbeeyo inay magaca Bollywoodka dunida ku faafiyeen, waxaana lagu tilmaamaa haliyey astaan u ahaa fanka Hindida muddo dheer. Amrish Puri waxaa weligiis lagu xasuusan doonaa doorkiisii kalaasika ahaa ee uu filimada ku matalay, gaar ahaan doorarka laadarka, iyo sidoo kalena in uu filimo caalami ah oo Hollywood door wacan ku yeeshay. waxyaabaha lagu xasuusan doono waxaa ka mid ah codkiisii quwadda lahaa. waxa uu ku dhashay magaalada Namaan, gobolka Punjab, sanadku markuu ahaa 1932 bishii Juun 22-keedii. hooyadiis waxaa la yiraahdaa Sardaani Bet Kaur, aabihiina waxaa la yiraahdaa Sardar Nehal Singh Puri. waxaa la dhalatay 4 walaalaha, 2 ka mid waxay ahaayeen jilayaal waqtigaas caanka ah ee Hollywoodka. waxa uu ka qalin jebiyey jaamacadda MB College ee magaalada Shimla. intaa kadib waxa uu u boqolay labadii walaalihiis Jaman Puri iyo Madan Puri oo ku sugnaa magaalada Bombay. filimkiisii koowaad ee loo dhiibay Mr. Amrish Puri waa uu ka faloggaroobay, taasna waxaa sabab u ahayd jiritaankiisa oo aan ahayn mid ay dadku ku qanceen, waana waxa keenay in uusan dib dambe ugu laaban in uu filimka jiro Bollywoodka. Amrish Puri hankiisii uu ka lahaa fanka kama uusan harin. intaa kadib waxa uu madax ka noqday waaxda caymiska shaqaalaha ee dalkaasi Hindiya. ha yeeshee mar kasta iyo goor kastaba waa uu ku fikirayay inuu mar uun fanka heer sare ka gaaro. dabayaaqadii sanadkii 1961 Amrish Puri waxaa arkay in uu fanka aad ugu jeelan yahay daaraktarkii weynaa ee Ibrahim Al-Qazimi. Amrish Puri waxaa u bilaabatay taariikh cusub oo uu markaasi ku haminayay. jilitaankiisii masraxa oo noqday mid ay dadyow badani aad ula dhaceen ayuu wuxuu caawiye u noqday jilaagii Satyadev Dubai oo ahaa ninka ugu caansanaa wakhtiga xagga jiliinka masraxa. waa uu sii watay fankiisii iyo jilitaankiisii xagga masraxa ilaa uu ka gaaray heer sare oo la oran karay waxa uu ka mid noqday dadyowgii ugu wacnaa ama ugu jilitaanka wacnaa ee wakhtigaas masraxa saarnaa. Amrish Puri intuu ku jiray jilitaankiisii masraxa iyo musalsaladii xilliga taxanaha ka ahaa telefishinada caanka ah, waxa uu ugu dambayn ku guulaystay daa'isada loo yaqaano Sangeet Natak Academy Award oo uu ku noqday midii uu ku soo caanbaxay. waxa uu qalinka ku duugay filimkiisii koowaad ee Prem Puchari, waxaana uu ku xijiyey filimkiisii labaad oo uu u saxiixay isla daaraktarkii wakhtigaasi filimka hore uu u saxiixay. filimkiisii labaad waxaa la yiraahdaa Sheeraha Warsham, waxa uuna ku sii xijiyey silsiladiisii filimaanta oo waxa uu galay nolol cusub. waxaana ka mid ahaa waxyaabihii dadyowga aadka u soo jiitay qaabjiliinkii Amrish Puri, waxaana ka mid ahaa codadkiisii kuwii ugu cajiibsanaa. dadyowga filimka daawanaya waxay aad ula cajabi jireen qaabka uu Amrish Puri u hadlo ama codadka uu u kala bedelo. shakhsi kasta oo filimka Amrish Puri uu jilaaga ka yahay daawada, waxaa habeenkaasoo dhan ay ka sheekaynayeen qaabkii uu Amrish Puri filimka u jilayay. waxaa intaa u dheeraa inuu isticmaali jiray wejiyo badan oo kala gedisan oo hadba qaaba. shakhsigii mar qura daawada waxa uu maskaxdiisa ka guuxi jiray codkii Amrish Puri. intaa kadib jilitaankiisii la yaabka lahaa waa uu sii watay, waxa uuna ku xijiyey filimaantiisii Nashanti, Manthana, Bhumika iyo Suraj Santan Go. Amrish Puri jilitaankiisii intaa kadib waxa uu noqday ninka ugu caansanaa ee wakhtigaasi ku jira qaabka laadirnimada amaba shakhsiga atooraha ay lidku isku yihiin oo ay filimka wada wadaan ama qaybta libaaxa ka qaata. intaa kadib waxaa la soo xiriiray Steven Spielberg oo ka dalbaday inuu dhigo filimka Indiana Jones Temple of Doom. Amrish Puri hore go'aanka ma uusan qaadanee guushiisii koowaad ee sababtay inuu filimkaasi jilo waxaa muhiimadeedu u ahayd warqaddii invitationka ay u soo direen Steven Spielberg ayuu diiday oo wuxuu ku yidhi waa inay Indiya yimaadaan. waxay daniba ku qasabtay daaraktarka caanka ahaa ee Mareykanka ahaa in uu soo duulo oo uu Amrish Puri soo raadiyo. ugu dambayn cagaha ayay soo dhigteen oo waxay u yimaadeen gurigii uu deganaa Amrish Puri. intaa kadib waxa uu saxiixa ku duugay in uu filimka Indiana Jones Temple Down uu qayb ka noqdo. waxaana la oran karaa
waa guushiisii labaad ee uu gaaray. filimaantii qaab jilliinkiisa uusan wacnayn amrish buuri oo uu taariikhda u galay waxaa ka mid ahaa filimaanta soo socda sida jatak oo uu atooro ka ahaa sunudol iyo gardish iyo firazat iyo mushkanti. filimaantan waxaa lagu eedeeyey inuusan amrish buuri ka fiirsan qaabkii uu u jilay oo waxaa ku eedeeyey dilib kumaar iyo master rajesh waxayna yidhaahdeen waa uu qaldamay master amrish buuri sababta oo ah jilliinkii filinkiisa firazat wax badan ayuu qalday master amrish buuri. master amrish buuri filimaantii taariikhda u galay oo lagu xasuusan doono oo qulubta reer hindiya aanan ka bixin waxaa ka mid ah master india filinkaasi oo uu ku jilayey master mugambow. magaca mugambow oo caan ka noqday dunida oo dhan iyo qaabkii uu u jilay master amrish buuri oo ahaa qaab ay dadku la wada cajibeen. amrish buuri waxa uu ka mid ahaa shakhsiyaadkii shirkadda bollywoodka ee dalkaasi hindiya gaarsiiyey heerka ay maanta dunida ka joogto. xaaskiisa waxaa la yidhaahdaa urmila devikar waxay u haysaa 2 carruura namrita iyo rajef. sanadku markuu ahaa 2005 bishii janaayo 12 ayuu amrish buuri waxa uu u geeriyooday xanuunka loo yaqaano madax dhiig ku furanka oo uu u geeriyooday. daawadayaal intaa waxaan ku soo afmeeraynaa barnaamijkeennii aan caawa kaga hadlaynay taariikh nololeedkii amrish buuri amaba sidaad u taqaanaan saalim muse. daawadayaal ha hilmaamina inaad tidhaahdaan subscribe saxafi channel oo aad mar kasta ka dheehataan barnaamijyo aad u xiiso badan. baxda saxafi channel oo isku duuban dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo kulan dambe oo xiisa leh. sondofon rushisheeya adoon doolay jacaylkii weli wuu idhibayaa sondofon rushisheeya adoon doolay jacaylkii weli wuu idhibayaa daraartii mahadgalo habeenkii miyaan hurdaa dhankoolayo aduun baan kugu dhadhabayaa daraartii mahadgalo habeenkii miyaan hurdaa dhankoolayo aduun baan kugu dhadhabayaa qurxoonay waxaan dhahaadan laa inagoo reher dhisno dhulkii ahaan ku dhalaniyo dhagax burdegno ku dhammayno xaajada dhaban qurxoonay waxaan dhahaadan laa inagoo reher dhisno dhulkii aan ku dhalaniyo dhagax burdegno ku dhammayno xaajada
daba dhigo siduu adiga kaa dhigay ana